waayahay kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kula soo dhawaada barnaamij gaar ah oo xasaasiya oo aan ku eegayo allaha u naxariistee saraakiishii uu dilay keligii taliyihii dhigyacabka ahaa ee maxamed siyaad barre sanadkii 1972 ودلدلادان دعوة لهاي سمديدو دبي بابودي كان لغو قدري دورو طبعا heestaasi waxay qayb ka tahay barnaamijka waana hees xasuus gaar ah oo tiiraayo badan u leh shacabka Soomaaliyeed kuwada muwaadiniinta ah ama wadaniyiinta ah waa heestii maalintii la dilay Salaad Gabayne loo sameeyay oo uu afweyna Maxamed Siyaad Barre u sameeyay waxaan soo day doonaa oo dhawaan aad maqli doontaan khudbadii jeeska ahayd ee Maxamed Siyaad Barre uu jeediyay iyo barnaamij dheer oo shacabka lagu qasbay inay soo banaan baxaan una daadihinayay xogayihii warfaafintii iyo hanuuninta dadweynaha Ismaaciil Cali Abubakar labada barnaamijba iyo barnaamij kale oo taxana inta baad maqli doontaan laakiin marka hore waxaan doonayaa oo qadkii igu jirtay inaan bal wareysto gabar u dhalay Allah u naxariisto Salaad Gabayne Muna Salaad Gabayne oo joogta dalka Canada waxaana bal weydiiyay haddii ay maqasho heesta Samadiidow dawin baa ku dhigan munay maxaad xusataa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان سلامة صومالي ودن سمديد ودرن باكوديان آد بينوغو على الحنطة نونا حسوسيسا إلهي حتى على الحمى إيوهن إيو قلب حمى بدن وينغو رجا أنيقا آدان أيرا لكن وحيابين لكو سمينا يان حسوستا مالين تلقادا إن عبهي لودن لها إن عبهي لوشرقولاي إن dhibaato uu samaysanna aan lagu masabiray xanuun badan ay reerkeena dan u tahay iyo eheladiisii wixii uu ka dhashay iyo qaraabadiisii iyo Soomaali kale oo badan oo la mid ahaa nimankii aabahay laga dilay Generaal Caylaan Allah u naxariisto Cabdiqaadir waa fahmi kartaa dariiqa ku dhigan dhulkii qoolisoona waxa waaye iyaga jirqool ay sameeyeen waaye ee u dan lahayn dadkaas masaakiinta ah si ku dilaan because of xabsi ay ka qableen si ay kursiga ugu sii fadhiyaan بيلو فلل بيلو وفلل بيلو فلل بيلو وفلل وفيرتدا يكفغادا كفتيغادا بيلو فلل بيلو وفلل بيلو فلل بيلو وفلل وفيرتدا يكفغادا كفتيغادا muna waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aabaha waxaa la yidhi wuxuu saxiixay in la dilo isagaa ogolaaday yaa waxaa la yidhi aabaha Salaad Gabayne isagaa saxiixay in la toogto ogolaaday ها بنتاس أسرع كقري ينمن وأسرع قبليه سقطوا كم جاء أحمد سليمان دفلة يو مح تو هدي إلهي را نمان أون أتستان أو حنك حسوس أحمد سليمان دفلة كحسوسان حنك حسوس علي سمتر حنك حسوس عمر حاجي مصلح نمان كيسكوت تجوايه أو kala galay oo asaga aabay German uu jiray markii warkaas la dhiga asaasi xilada hooyo telefoonka oo maanta waxa la soo saaray wareegta ina adiga saxiixday nimankii inqiraad isku day in la dilo waxaan ka ogahay male wax si aniga ugu danbeeyay in lagu shaqoolo waayo waqti markaan ka soo noqdo ayaan arki doonaa waxay si ka xanaaqeen Germany markuu imaaday ayaa waxa uu soo baxay mujtamac badan oo aad ugu riyaaqsan wanaagiisa kalgacaylkiisa iyo daacadnimadiisa Maxamed Siyaad Barre markuu intaas arkay ayuu daba galay suu u dilo iyo suu u shirqooli lahaa marka nimankaas isugu tagay waa kaasa waxaana aad ugu xumaa maantay ninka dictatorka ahaa oo Soomaaliya oo dhan baabashay oo ummadoo dhan baabashay Cabdiqaadir meel dibiceenaashi dilay Salaad Gabayne dilay ugu dan lahaa qabiilada ugu waaweyn ee Soomaaliya inuu baabasho in maanta ay xamar ka furantaa jaalid
ciidda kulliya siyaad in maanta oo dhan siyaad laga sheekaynayo siyaad ma la wareystay intuu ka tegay yuu baaba'shay yuu ilaa iyo haddana aabbahay buug waxaa jira the world is going our way ay ka qoreen beesha uu ka dhigay siyaad barre ay been uga sheegayaan oo ingiriiska lagu sameeyey ayaa jira oo leeyihin KGB ayuu siya lacag 500 oo ku halkaas munay ku celi codkaaga la maqli maayo halka ku celi kuna soo dhow telefoonka KGB-ga ka dambeysay dilkiisii iyo maxamed siyaad barre 500 oo kun ayaa waagaas 1973 la siiyey 72 la siiyey si siyaad barre ay u dilaan nimanka aan ku soo xusay daflana maalin hore waxaa laga wareysay VOA-da asaga allah u naxariista cabdiqaadir xaaji xuseen abtigay maxamed abshir haamaan wuxuu cabdiqaadir xaaji dafle wuxuu ku soo celceliyey uu yiri ninkan haddaanu dili lahayn uuna layn lahaa marka cabsi darteed ayaa aabbahay loo dilay wax kale loo dilay male cabdiqaadir dheeraa kuu soo haray wax dembiya uu galabsala male wuu ka ruqsaystay dowladda siyaad barre marka uu ka ruqsaystay markuu gobernatoore ka ahaa gardarro cad ayaa lagu soo xiray aynaashana waxaa loo dan lahaa isaaq marka ninkaas saasuu sameeyey waxaana ka dambeeyay dilkiisa uu lahaa salaad gabeer inuu dilo maadaama aadka hore uu dhaliyey ayuu wuxuu islahaa kana uu ku shirqoolaa because shacabka aad iyo aad u jeclaa aabbahay oo u soo baxay kuna faraxsanaa waase ka xumaay waagaas maalin ay hiilin kareen ma ee qasabaa lagu soo saaray waayo dowladda cusbay waayahay muno sidoo kale waxaan dhegeysiin doonaa oo aad maqli doontaan in korneel hawiya oo ku dhex mataqaanaa uu ku yiri siyaad barro qodbaynay ku maqli mayno dhegahayna kuma maqlaan waxaad sheegayso kadibna siyaad barra si jajas ugu jawaabay korneelkii ayaa ku dhex suuxaya markaa oo waxa uu leeyahay dibadda ha loo qaado dibadda hala dhigo meesha dhexdiisa in jiddu lagu sameeyey muujis xaalka ahaa waa in daawasinayaa bal muna iigu jira qadka kale dad kale ku jira intaana qodbada siyaad barra saarin tii ismaaciil calo bakar saarin dad kale dilkii salaad gabayre say u arkaan qofka koowaad aan bal qadka ugu yeero waay halow السلام عليكم داهي واقف سلامي وكا قاضي أرنت سراد قبيلة مد وحي أهي مد أكو فول مد إلا إيه حدا أنا مركا مقالنو أن لو إنه ومدنا إسويدينو دتكي مركا أسجوغي محي واحد روايين محي أغلادين إن أرنتان سياد برهو فليو محان قلابتي أرنتي ولي مهارين داهرو وحا حدا تاسنو غسي حنون بدن إنو فرماتو ولي أرنتي أديركيس أوضو waxaan nooga sii xanuun badan maanta waqtigan lagu jiro inuu leeyahay hanti dhowrihi qaranka la ii keeno marka ninkaaga soo dhiib macnaheedu maxay tahay waa aan xiro ama aan dilo marka arrintaasi weli kama jiifano kama seexano waayahay igu jir qof kale u gudbaya halow qofka labaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ويا قفك dadka qad ku jira waxaan leenahay barnaamijkiina xakameeya hadaad maqlaysaan haye soco wado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم كل سلامة داير على السوق والكي وياي أرنتي أذكر ثلاث كبيرة كذي واحد هاد مالين مقدية أو أنا مقدي نوع هاد مالين تاسيتي ما هين تتقنقارة أما تتشيء أو وحق معنا هين لكن أنتي كدم بيتي أو لوجا شيكي وحيكون نقطي هالقطالو أي يكون نقطي waxay noqotay barmadow oo naga soo baxday waxay noqotay wax aanan anagu aanan ilaabi karin weligeena aanan iloobi doonin waayahay iigu jir qadka waxaan idin maqashinayaa xogayihii warfaafintii hanuun dadweynaha ismaaciil calo bakar oo 5 May 1971 soo qabashadii salaad gabayre ka hadlaya iyo saraakiishii kale walaalayaal halkan waxaanu idinku haynaa war muhiim ah oo ka soo baxay guddida sare ee thawradda warkaasi wuxuu yahay waxa la ogaaday khiyaamo ama mu'aamaro lagu baabi'inayo thawradda oo ay wadaan generaal maxamed caynaanshe iyo generaal salaad gabayre iyo niman military ah iyo niman shibra
khiyaamada ama mu'aamaradaas aan sheegay waxay bilaabantay waqti hore waxaana ay hadda ahayd inay waqtigii fulisha la fulinayay ama camalka ay camal gelaysay inay noqoto waxaase la socday xubnihii dowladda ee shaqada ku lahaa intaasoo muddo aba kama badhnaan karaan mu'aamarada ama khiyaamada thawradda lagu baabi'inayo ee dhisme ama ka qaybgal ay ka qayb galaan ajnabi markaa waxay guddoomisay guddida sare ee thawraddu oo saaka fadhiisatay waxa aan halka ka sheegi doono in gacanta lagu dhigo generaal maxamed caynaanshe iyo generaal salaad gabayre markaasna loo gudbiyo qaadiyaasha shaqada ku leh si sharciga loola fuulo waxay laga saaray guddidii sare ee thawradda labadaa generaalba waxa isla markaas laga xayuubsaday garaadihii ay siteen hawshii militarigana waa laga saaray waxa kale oo la qabqabtay waxa laala wixii military ahaa ama civil ahaa ee ku jiray khiyaamada weyn ama mu'aamarada ee ilaa hadda la aqoonsaday waxa socota baaris la baarayo ama la aqoonsanayo dadkii kale ee ku jiray mu'aamaradaas waayahay sida aad maqlayseenba xogayaha warfaafintii hanaha dadweynaha ee xilligaasi towradii kacaankii siyaad barre keligii taliyihii dhigyacabka ahaa ismaaciil cali abubakar ayaa iclaamiyey in xilkii janaalnimo laga qaaday mataqaanaa lasoo qabtay taasoo gogol xaaru ahayd in la toogto haddaba waxaa la toogtay qiyaastii 3 Julaay 1972 maxamed siyaad barre ayaa maalintaasi waxa uu jeediyey khudbad jeesa oo aan doonayay iminkana inaad ila dhagaysataan عبادي هذا إلى جوجا أو كمرة فران عين أوجين أوركولا حاطر إني إمرة فران مرة محاول عيوا خطر هذا إمرة فران وحليها إسكا عمسين يعني لا يعني صلاة قرشيل وكوري مركو معاملة عبد الستي أو أسقط الستي ريفولوسيونا كلا يوم سنة والله وكوري وأنا وجانا واقع الملاك وأنا وجانا وأيكوريس قرشيل قبشيد وكوريس مركو دربان يبلو يهبل يكن يأرض يحوها حد الهبل يكابتن هبل يمشي هبل أنتوا أرض غضب ورسوا حوطة دليل إلهي إنك ما تجينا وأويا روحي ما قال صلاة وعبينتا وحضور والله هذا الملك جاني مبدأ حنا بوش الملك جاني كده حباح ضدك واحد قوة كده وفسرة فرنسان أو إسديلها هي مرة بنو سومالي سلينا يسمى مرة بنو وعن ريفولوسيونها هذا أدوك مبدأ كلامه أنه كابان ودني بنتنا وين ما دقاش كتير كده وعربنا وصرنا إن إسكو مديهين إن إسكو ولا ليهين إن يقرطان عدو جودو ما يشوفوا إن يقرطان إن أمت إن يسوق يمسيين سيدا عن الصومالي بكدونين كده وحق ينسو معاملات كوستا قوة قوس عن ماي الله كقول لي باني ماي كتشوتشي كان شيشينا كان سقينا كان هوسينا بين باتشيكس كان صبينا كتشوف معي كمان أنا قرينا معاه واحد ديدا يي نين أنو دجال صور قال إنا خيانة ديدا حدام ما هو شيء إلى هذا كم رجع هذا الله كبغايان هذا الشيء مالي كو موس كتشرين وحي أسوء شيء كتشري هذا الله كبغايان قلوب توضنا هو شيء صاحب قلوب توضنا هو شيء أنا يجي شيء وعليه وأنت حتى قرشة أنا قبل ما أبيرك تقول ريفولوسيون كونتر ريفولوسيون كان صوين بوب جرانديتس وهو استراك وافق روحي ونك كانوا مركب واحد الدنيا سوينان معه وين أنت بنسينين طيب بدل صاحبي واحد يقول وانت هذوس هدير بخير لاين أو تمن بريد ريفولوسيوني عن كتشوجين ومعاملة عن يقرن كلاي معه أصيب بدل إسا وأصيب بلارنا إياه أصيب بلار تاعي بلو كوكل سوناي جنرال يا مينستر يا واحد ورقاده ديفيسورن مدح النقو صعو وهو يروح على هذه بهي كو عن في وكتاب إدله هذه كلا سوال بونساس ولا وعد إدوني معه هذا الدرجة دوني سواك
haddaad oo xarago iyo gardarajo military haddaad doonaysa waa kan mid siyaasi haddaad doonaysa waa kan xoole haddaad doonaysa waa kan haddaad wax kale doonaysa waa kan faanfaan iyo qurunkii aad taqiinay suuqa haddaad la maraysa waa kan ilaahay baan kugu dhaafshay soomaaliya meel xun uga hogaamin ka jiro waanaan kugu ilaalinayna saas isagoo saasa oo aan ku ognahay baan waxaan u dhibnay minister defense generale iyo minister wax walbaan ka dhigay kama aanan qarin waa u sheegay waxaan war joog taasaad ku socotaa intuu watay baan u tilmaamay war ka joog daalimintiisana kulli waa wada aqrin qaarna ay daalimintii la galeen qaarna hadday banaanka iska joogaan laakiin hadday doonaan ay ka noqon karaan weli nafsi fiican bay haystaan waa ka noqon karaan saad wixiisa waxaan marag weydiisanayaa qurun inay ahaayeen raggii isla hadli jiray yaan marag weydiisanaya oo qabyaalad ku fadhiday oo isticmaar ku fadhiday gaalin wax la qabsado oo muxuu ahaa qayb ku fadhiday oo iimaan la'aan shakhsiga ku fadhiday oo iimaan la'aan dad khaasa ku fadhiday qurunkiisii marag waxaanu haystaa ilaahay iyo kuwii la joogay laakiin 8 bilood ayaan isagoo meyd tunku wada meyd isagoo nin حتى شعب هنقطة أنه والصلاة بلاي وضع كل قد ما أنا أقول صلاة جعنت عن لي هاي كتابا ما هي جعنت تشال يالكين الغطابا ما هي تيسي إنه يسكت لما مد أسلي هاي إنه يسكت لما محاو عي وحو إلى الصوت قالي شهاد غرمون بإلى الصوت قالي مركا ما أهان دونتو إن أنا وحن حوق لي أنا نسكو جينين إن أنا كعلي يقطك هدوس ديرو سكوته هو الرب إلهو كمرق هو إننا أنا مسؤول كاين صلاة كابوا كو محايا هاي مركا سياسة ضوضو هي المراد كود يمشي والسعودين وحبا أنا وكشيء ما يو أما سنة تربع فسري واد مقشين بيلتها هاي أما هذا كوربا الله فسري وام إعلان إنا كورم ما ينو لكن كل يبا مبادئ ما أنت أنقص عنه ما عنا هين كل يبا صومالي ندها أهات ما عنا هين كل يبا صومالي حق الناطق ما عنا هين كل يبقى الصومالي حداد حق وحلوه قيبش ما عينا هين كل يبقى الصومالي هراه قعدوا حيفتو أدون ككلاتو حلطر تنتو ومحوها دولتها أدون كا انتي لسنا تضاد أهم هي الدولة أهم با هل كشرف كذا كل ورطو ما عينا هين كل انت صادم كل يبقى ما عينا هين تاسونا هم تيادو انت كشيء جاي ويا مركب حنوسو السعودي انتي إنه مركب مسؤول كذلك إنه حنبارني انتي إنه نريدتك وحنو وفلينا أما كور كعينا وضع حلالة معاتب ما مغلايا ما مغلايسا يا يمشي المياه ربين ادعية دكتور كجية ضبيل سيد ضبيل مرباي يا هذا الفريق هذا مركباية أغبح فريد مركا ما يدعي كرتادنا ما يدعي كرتادنا إن المعاملات كل حوارنا مركزنا أي نولدشدنا ضن مسكينة أو من ليه إن نقطع عنه أما ضن قبيلات قرمون أو رجل من هاي الصومالي إن نقطع عنه أما إنه ugu adeegno isticmaar oo ku raali gelino no ma dhici karto yaani ma ay ahaan karto ninka Allah caafiye ama banaanka u saar ama hadal ka daay ya banaanka u saar marka ha meesha naxawda agee fariis fariis marka ma ay ahaan karto waa taa marka waxaan ka soo jeedinayaa siori hadalla awalta aan iska cunay baan ku soo noqonayaa haday taa waxaan hadalka midkii aan ugu dambaysiin lahaa ayaan ugu horreysay waxa weeye marka haday joogto aynagu waxaynu nahay revolutionary waxayna u fiican tahay runta in la isku sheego iyo ku fiican tahay revolutionary kanu waa aynu xusuusanahay ma aha mid aynu cayaar ku galay ما موجنا من موجنين ريفولوشنها كانوا إنه
wax la oran jiray constitution lagu sheegi jiray ama dastuur lagu sheegi jiray oo dabada u gadiyay ma ilowsana baarlamaan dhan oo dhisan inuu dabada u gadiyay ma ilowsana madaxda dalka inuu xurimo ilowsana ma ilowsana inuu tuug badan qabtay oo xoolaha ay u boobeen oo ay xabiska uga buuxaan ma ilowsana revolutionaha kana ma ilowsana isticmaalku ugu waaweyn inuu la diray ma ilowsana eed badan inuu qabo ma dhici karto revolution inaanu ogolaano cayaar in wax lagu yeero ma ay dhici karto marka waxa weeye haddaan soo koobo ma ay dhici karto qof iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 10 iyo 100 iyo 50 iyo 500 iyo wax walba midna ka maarmay midna ay u aabayeelay waayahay haddaba intaa haddaan uga tago khudbadii maxamed siyaad barre ee jajaska ahayd ee uu salaad uga hadlayay habka u dilay iyo sidoo dadku beentiisa uga dhaadhicinayay iminka aan dib ugu laabto qadka telefoonka halow hadday maqlayso qof u jira qadka halo waan ku maqlaa daay waayahay hadda ma dhageysanayseen khudbadii siyaad barre ee salaad gabayr uga hadlayay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allah horta salaad gabayr muhalligii Soomaaliyeed ama ninkii ciidamada ama dalka wadaniga u ahaa ee dhintay sida jajaskana hadda u hadlay maxamed siyaad barre dilkiisa waxaan leeyahay intii uu ka dhintay ummadii Soomaaliyeed samir imaan allah ka siiyo haddana siyaad barre labaad ayaa soo baxay oo u maleynaysi inay wadadii siyaad barre uu jeexay ama uu qodob u riixayo maadaama uu yiri hanti dhowraha afarta laga soo saaray asagoo ka mitalaya salaad gabayr suuq ku sameeyay lagu sameeyay in oo kale uu sameeyo taasna ay wajigabax ka tahay ummadda Soomaaliyeed mar kale in dib lugaha loola galo dhiig sokeeye iyo Somaliland dhibaatada maanta ku go'do muxuu ahay ay ka tabanaysa taasoo siyaad barre sabab u ahaa haddana uu wada in adeerkiis labaad in uu wadadii uu koonfurta Soomaaliya asagana sidii labaad iyo si ka dara inuu marsiiyo iyo qax iyo rafaad ummadda Soomaaliya u geysto halkaasoo tusaalayaal iyo dhigacabyada Soomaaliya aan muxuu ahay siyaad barre ilaa hadda waxaa ognaa daahir waxaa ka dhaxalnay inay tahay cuqdad Soomaaliyeed dhibaato fara badan dulqaadkii koonfurta Soomaaliya uu sameeyay jaceelka in ay noqdeen kuwa lagu dhibaateeyo haddana ay muuqato in uu siyaad barre labaad wadanka dib uga olcay taasoo muujinaysa wadada iyo markasta Morgan oo xataa hadda madaxtooyada ka taliya iyo dhammaan haddana aan ka warqabno sida aan warar ku helin xataa siyaad barre heestiisii guulisiyaad oo ninkii muxuu handisay in uu dib ugu yeeray muxuu ahay ninkan dhiiga cabka farmaajo fudeyd ama farmaajo badmaceeye marka runaantii wax la iska indhasaabi kara ma runaantiina waxa aad iyo aad fikradda dheer daayro ka bixisa hadda koor waxa soo socdan ay hadda ummadda dib ka fahmayaan ay shalay ummadda kugu muuqdeen nin muxuu ahay meel fog wax dheer ka arag maadaama aad tahay ayna hadda muuqato waxa ka digaysay iyo dhibaatada fara badneed iyo muddadii lagu haystay hal suugo dawladda ayna muuqan muddo lagu sugo iyadoona la sugay ay laga dhaxli doono in dib ceelasha biyaha loogu qaxo in rafaad badan la maro in jiilaal badan la maro ummadda Soomaaliyeedna dib rafaad dib loogu celiyo maantiina way iska cadaay ummadda waxay sugayaan ay tahay in dib loo xasuuqo dib loo dhibaateeyo marka maantii waxay jirtaan in ummadda Soomaaliyeed ay ka dhiidhiyaan haddana kudlada lagu magacaabay dalka Nairobi xildhibaanada u kacay inay shacabka dib u badbaadiyaan waxaan sugaynaa bisha June iyo July inay waayahay qof kale u gudbaya qadka saa u beeqaamiyo waqtiga halow qof kale ee ku jira qadka salaamullah barre hadda dhegeysanayso khudbad siyaad barre ee toogashadii salaad gabayre iyo qaabkii jaska lahaa barnaamijka hore u gal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun horta waxaan toogay uga baryan xariistii janno salaad gabayre arinta xigtoon rabo inaan ka hadlo waxa weeye arin hadda waayaan ayadana xabsaaji ah oo ninka la yiraahdo oo adeer u yahay ninka la yiraahdo maxamed siyaad barre hadda oo dalbaday in maaragtay loo soo gacan geliyo waxalana wixii hore dhacay dadku waxa waaye aanay wada haayeen xoogan ogeen laakiin hadda waa la isbartay la isku maanta laga aqbali maayo سبنتين laga aqbali maayo in lagu soo gacan geliyo hanti dhowr qaran oo ay baarlamaan soo doorteen oo suurtageedo waxa kale oo ayadana ka taxsiinaya shilkii u dambeeyay hadda cawada dhacay oo nima ilaalo u ah ninka la yiraahdo farmaajo ay u geysteen dib ka tirsan nabad sugid qaran
وايا يقول جل أتكاga يقول لي تو قف كلا يقول بيا هلو قف كلا دو مغلا يقول جل أتكا هلا والسلام عليكم وعليكم السلام هذا دقيقة سوق بدي السياد برية تي إسماعيل على بكرة يدلك صلاة قبايرة محاكو بعي إنا لله وإنا راجعين إنا لله وإنا راجعين أدلك صلاة قبايرة الله ونحريستو وسياد بريكيستو كل عمل كيسي كتاب كيسنا إلهي قعنت بديك الله تطفي عليك صلاة قبايرة حتى هلقو قوستو وانك قورع دبيقا هكو قوستين وانك قورع دبيقا هكو قوستين مركا هذا قفكي لبعضها هذا سيداس لو كلايا وجد نور فارح حتى قالوا شرح حرف يا برقدد إنه يري نور فارح قعنتها الله إيقصاصيدو marka habar gidin way u jeedaa iraab way u jeedaan marka siyaad baran labaada imaaday markii horena waa sheegay oo waxaan dhahay farmaajo faankiisa wax ma taraayo waa faan badan yahay marka faanka wax ma taraaye dad yow intaa kacdiin halkaanin qabiilo maahan aniga daaroodoo dhan dacwo uma qabno halkaanin tartiib waa inuu madaxtooyada oga faarax kursigu imaaday baarlamaana soo doontay waa nin aqoon-yahan asaga ka aqoon badan waa nin akhlaaq leh waa nin degan marka waxaan u sheegayaa soomaaliyay sidii salaad gabeer ayaan igu dhicin salaad gabeeraan inigu hortoogtay salaad gabeeraan inigu agdilay salaad gabeeraan inigu maxeeto lagu asagii wadankii keenay oo dhaliyay kacaankii agtiina lagu qaliinay marka ayaan igu dhicin sidii salaad gabeere hawiya gacanta geliya hiraaba gacanta u geliya siyaad bare marka adinkana hiraab hadaad tihiin farmaajo waa siyaad bare labaade gacanta ha u gelinina waa u sheegaa nimanka baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose muuse suudi u weeyahay ubax taaliin warsamo u yar tahay ninkaas gacanta hadaad gelisiin aana xun aa soo baxayso waa u jeediin hal indhasaabinin waagi hore baadiyaa lahada dadka reer magaalay noqdeen inunka 8 sano jiro ayaa yaqaano sharciga marka waxaan u sheegayaa dadka aqalka sare ee aqalka hoose anagana bedelaayo nuuraan gacanta gelin marnaba yeerin farmaajo madaxtooyada sharafa loogu dhiibay sharafna ha uga baxo qabiil ma jiro waa loo dhiibay ha ka baxo ma doonayna farmaajo shalay haddaan doonayna maanta ma rabno waa diidnay nuur faaraxna biyo ad u haftaan ku dhahay waa asaga korkiisa hadduu biyo ku saxdo nuur faarax waa asaga korkiisa anigoo ku hadlayna hadalka hiraab biyo aduu ku saxdo nuur faarax asagaa loo heystaa waayahay qad kale agud baya qof kale halow alo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daahir ma ii maqlaysaa si fiican aan ku maqlayaa barnaamijka gudagal horta marka hore waxaan ka tacsiyaha geeridii naxdinta lahayd ee ku timid adeerkay talaad gabayare keliye oo gacanka xaq daran ay dishay waayahay kolley waxay ahayd taariikh madow oo aan weligeyn aanan iloobeynin waayahay maantana waxaan dareemayaa saansaantii oo kaleeta ah waayahay ma dhici karto in nin maxay ahayd ma sameynin ninkaas wax dembiya ma lahayn darawalkii ninkaasaytii dadkii staafkiisa ahay ayaa qof xabad uga fakatay ama kama wax dembiya oo asiga shakhsiyan u geystay ma lahan haddii la leeyahay adiga darawalkaagiyaa wax dilay farmaajaba staafkaagiyaa wax dilay farmaajabo darawalkiisi ayaa dilay tahliil hubane ina tahliil hubane waxaa dilay darawalkii maxamed cabdullaahi farmaajo dilay waaya haddii tiir la wada geynaayo farmaajo iyo nuuraa la isla geehayaa ma ku muuqataa inay siyaad barre iyo farmaajo isku dhaqan yihiin oo sidii loo dilay salaad gabayre kale badan oo hawiyaa maanta uu farmaajo durbi isagoon 2 bilood jirin uu bilaabay inuu sidoo kale u gaarsado aniga waxaan ku leeyahay daahir warkayga si fiican u faham haddii qof dembi qof kala galay loo leeyahay adigaad gashay macnaha farmaajo darawalkiisaa wax dilay nuurna istaafkiisayaa wax dilay saas darteed haddii uu raalli yahay farmaajo annaga nuur waa ha loo dilo ha lala dilo farmaajo iyo nuur tiirka ha laysla geeyo haddayna ahayna ninkaagaan dilaa ninkaagii kalena baabuuraan dardarsiihaa mana hadli kartid adigana habar gidra inaa waxaan leeyahay la ii keeno war habar gidr xitaa ma dhiibi karto meesha guduloodaa joogo
waxaa joogo maxay hiraabaa joogo hawiyaa joogo mana isku raacayaan wallahi ana la isku raacaynin shalayna maanta ma ahan shalay haddii aan adeerkay salaad gabayare maanta aqliga iyo garaadka iyo dadnimada aan leeyahay wallahi ana la dilay laakiin waxaan kuu sheegaa maanta horta wallahi yaa ku dhaarta maanta sidina waa ka xoog badannahay waa ka wiilal badannahay waa ka xaniye badannahay waa ka raganimo badannahay waa ka cilmi badannahay waa ka aqoon badannahay qof ka yeelayso oo ilaahay abuurtayna ma jirte farmaajo haddii oo run sheegaa tiirkaasna diyaar ha u noqoyo nuur waxaa lala diri karaa oo keliya farmaajo waxaan kuu sheegaa intaas waayahay muna salaad gabayre muna qadka mugu jirtaa muna salaad muna aya ka waran misleedahay hanti dhowrihii qaranka sida aabbaha loo dilayaa maanta ma aaminsani mana u malayna farmaajo inuu yiri in kalena weli ma ahan laakiin waxaan ku sheegayaa maxamed siyaad siduu aabbahay u dilay annagana ma rabsaneyn anaga xataa anigaan kula hadlayo wiilkiisa ugu garaaci jiray maalin walba wadanka halka ugu qabsan ololaa wadaa iyo waxbaad samaynaysa iyo farmaajo wuxuu ahaa wadani qaran iyo dalka waayahay haddaan ololo waday oo wax waday dadka waxayse ogeyn ayadoo dawlad jirto in annaga xamar nalaku weerari jiray nalaku garaaci jiray hooyaday baabuurtii aan raaci weynay aniga iskoolka layga soo dhoofiyey calaa guul wada siyaad qaad every day madaxa la iiga garaaci jiray mar kasta maxaa tiri siyaad barbar ku joogo waladi garaaci jiray carruurtiina aniga kula hadlayo guul wada siyaad qaad aa laygula garaaci jiray guul wada siyaad iskool waa dhigan waayo waa laysoo dhoofiyey taasaan uga soo cararo wadankii waa wadankii oo xamar aan dhex joogno hooyaday qofkii right siiye maxamed siyaad waa u yeeri jiray wuxuu dhihi jiray faadimaada cadda maxaa right u siinaysaa heerkaasu nala gaara xoolaheenii u dhacay wuxuu u qeybshay nimankii ku markhaati kacay aabbahay abtunawna naga maqan yihiin hal cariis xamar kuma lihin aabbahaygii wadanka dhisay dawladda dhisay soomaali dhisay ahaa halyeeyii keliya oo soomaaliya bilad geesinimo sharaf lagu qaatay xaqa adduun weynaha u dhisanna waxaa waaye ninkii bilad wadankiisa u dagaalamay inaan la toogan karin laakiin haddana wuu toogtay awoodiisu ku toogtay aabbahayna garab waa waayey nimankaas la wada toogtayna garab waa waayeen wixii dhacay waa dhaceen maanta farmaajo ma u malaynayo mana u malaynayo inuu samaynayo inuu hanti dhowraha toogto bilaa sharci la-aan ama wax u go-an ama wax asaga hawiyihii shalay 1972 July aabbaha toogashadiisa markhaati ka ahaa ee awoodi waayeen aabbaha difaacaan maanta ma ka turoon yihiin wallaahi waxaan isleeyahay waa ka turoon yihiin mana dhacayso mana u malaynayo farmaajo hadduu taas ku hadlayna waxaan kaga digi lahaa inuu dib uga noqdo uu dib uga fiirsado waxaa la yidhi think twice before you do codkaaga uga go-ay muno waayahay halow qad kale u gudbayaa halow قاعد على سو waxaan ku sheegayaa farmaajo waa inuu ugaarsiga uu qabiilada gooniga ah qabiilka abgaal iyo habargidib waa inuu iska daayaa ugaarsiga waa inuu iska daayaa nimanka uu yiri intaasoo boqol dilka ha loo fududeeyo ha la boobsiyo inta rabadaan la gaarin taas waa ka waaninaya wiilal yar oo lagu waxbana lagu arkay inuu yiraahdo had joogta taas waa ka waaninaya inuu iska daayo farmaajo midda labaad qabiilada habargidir iyo abgaal uu xilalka ka qaaday 3 bilood uu jiraaye sababtu xilalka uga qaaday dab qabiilada gooniga siinaay qabiilada uu ugaarsanayana qabiilka habargidir aad uu ugaarsanaya qabiilka habargidir aad uu xilalka uga wada qaaday qabiilka habargidir uu ka soo horjeedaa ma garanayo maceedidu ka urinaya ma garanayo marka farmaajo waxaa kuuron cadow badan inaadan samaynin inaadan qabiilada isku dirin inaa iska daysid farmaajo maamaada waa iga dhuntay saddexda uu maama oo gabadha sheegtay waa u malaynaya inay kula hadli doonteen waa inuu saddexdaas arrimood uu ka tanaajulaa farmaajo qabiilada haddii
ugaarsanayo oo cilalka ka aruursaday iyo qabiilada abgaal oo cilalka ka aruuriyo farmaajo iska daayo farmaajo iska daayo habar gidir iyo abgaal ayadaa ku dooratay ayadaa wadanka kugu soo dhaweysay ayadaa kursiga ku siisay habar gidir iyo abgaal ayadaa kursiga ku siisay farmaajo kala saar xididka iyo kala saar waayahay waa mahadsantihiin sidaad maqlayseen munasaraad gabayre waxay sheegtay in lagu qasbi jiray in ay qaado guulodow siyaad sidoo kale haddii hooyada ay qof qaado in siyaad barre uu yeeri jiray dadka qaarkii ayaa siyaad barre waxay ugu yeeraan qof muslima waa ka jawaabi doonaa oo qofka suuradda alle ee suuratunisaa beeniyey ama maanacay oo waxaan jirin ka soo qaaday oo ku dhawaaqay sinaanta ragga ee dumarka laguma sifayn karo qof muslima siduu ilaahay quraankiisu ku sheegay oo ahayd wama lam yaxkum bima ansala allahu fa ulaa'ikum alfaasiquuna fa ulaa'ikum alkaafiruuna fa ulaa'ikum daalimiina saddex jeer uu ku celiyey sidoo kale qofka wadaniga ahay dadkiisa ma xasuuqa sidaad maqlayseen ninkii la soo halgamay ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhisay Janaal Salaad Gabayre ayuu toogasho ku xukumay Janaal Dheel ayuu toogasho ku xukumay Janaal mataqaanaa Caynaasha ayuu dilay sidoo kale saraakiishii iyo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalkii sabab ka qaybgalay wadaniinta ayuu toogtay siyaad barre beeladan oo Soomaaliyeed oo hawiye isaaq iyo raxweyn ayuu madaafiic ku garaacay xasuuqay qofka noocaasa ma garan karo haddii qaarkiin ay u yaqaanaan qof muslima ama qof wadaniya sidoo kalena dadka qaarkii dacaayadda u fidiyo ee kacaankii ka soo haray waxay sheegaan in siyaad barre dalka uu dhisay laakiin dalka wuxuu ahaa dal hanti wadaaga oo iska wax u qabso ayaa lagu dhisay marka laga reebo in wadooyinka dowladda Jeena ay dhistay marka laga reebo isbitaalada dowladda Jeena ay dhistay in dekadaha badankood ay ruushka dhiseen waxaa la isweydiinaya kula soo dalka haystay dhaqaalihii dalka ka soo baxayay xagee siyaad barre mariyay dabcan dad reerkiisa ayuu lacagta siiyey oo ku tamashlaynayay oo ku tumanayay dalkuna siyaad barre haba yaraatay waxba kama qaban marka laga reebo inuu dad xasuuqay laakiin dadka qaarkii oo ku qabiil yahay siyaad barre ayaa waxay u yaqaanaan wadani oo ay dadka ku qasbaan iyagoo u qaaday heestii guulodow siyaad waana tan maanta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xasan guulwado dhex dejiyay fila Soomaaliya waa kan maanta la dhisayo isbitaal loogu magac daray Jaalasiyaad waa tan ay muqdisho ku taala maanta kulliyadda Jaalasiyaad xanuunkaasi hadduu siyaad barre dad badan la yahay nin wadaniya dad badan oo adeeryaashii iyo awoowayaashii iyo hooyooyinkiisii iyo habaryaashii xasuuqay ayuu agtooda wuxuu ka yahay gacan ku dhiigle kaligii taliya ah haddii dad badan oo siyaad barre la ahaa nin muslima oo magaciisu uu yahay maxamed dad badan oo diinta islaamka difaac u ah ayaa muxuu siyaad barre agtooda ka yahay nin kufriyey siduu qur-aan kariimka ahi aayad ka mid ay leedahay waman lam yaxkum bimaa ansala allahu fa ulaaika faasiqiina qof kasta oo muslima oo tira maxamed siyaad barre alla u naxariistana waxay ku noqonaysaa dembi maxaa yeelay wuxuu maanacay oo uu beeniyey aayad qur-aan ah mana ahan aayad qur-aan in la beeniyo wax sahlan waana halka Soomaaliya maanta dhibka haysta uu ka soo bilowday waana halka maalintii culimada uu laayay maxamed siyaad barre ee uu tiirka suray ee diyaaradaha isku dhaceen oo ay ka sheekeynaysay gabadhii uu madaxweyne ku-xigeenka qabay laakiin barnaamij dheer oo ku saabsan oo marqaati leh maxamed siyaad barre kumuu ahaa siduu u dilay culimada Soomaaliyeed siduu aayadaha qur-aanka u maanacay siduu wadaniinta Soomaaliyeed u dilay waxaa ka sheekeynaya saraakiishii Janaal Galaal ka sheekeynayo kolonel Cabdullaahi Axmed ka sheekeynayo gabadhii gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed xilliga ahayd oo aayadda suuratunisaa beeninayay ayaa ka sheekeynayso iyadoo muuqaalo ah ayaa idin soo bandhigaya waayahay haddii aad daawadayaal barnaamijkaasi dheer aad daawateen iminka waxaan kaga tegayaa hees la yidhaahdo beenlow waa falalow Below, 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 u fiirsada ka fogaada ka fejigaada falalow wa falalow falalow wa falalow u fiirsada ka fogaada ka fejigaada